sideedii bishan oo ku beegan habeen hore waxay ahayd markii koox abaabulan oo al-shabaab ka tirsan uuna hogaaminayay horjooga xasan muxyidiin ay isku dayeen inay gudaha madaxtooyada Soomaaliya ka fuliyaan weerar argagixisanimo waxaana weerarkaasi ay ku sheegteen inay doonayeen inay ku qaarajiyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiweli Sheekh laakiin iyagoon gaarin hadafkoodii ayaa waxaa fashiliyay sargaal ka tirsan madaxtooyada oo lagu magacaabo Mukhtaar kaas oo inta aysan gaarin bartilmaameedkoodii ka shakiya halkaana waxaa ka bilowday israsaasayn sababtay in markiiba laga soo saaro halkii ay joogeen oo u dhaxaysay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska wasaaradda maaliyadda maleeshiyada al-shabaab ka tirsan waxay gaarayeen 4 saddex ka mid ah waxay wateen dharka ciidanka waxayna ku hubaysnaayeen qoryaha AK47 iyo bamgacmeedyo halka kan afraadna uu ahaa horjooga iyo fududeeye waxaana ninka afraad oo isagoo nool la qabtay uu ahaa shakhsi laga yaqaano madaxtooyada iyo aageeda taasoo u fududaysay inuu awood u yeesho inuu ka gudbiyo baraha wax lagu hubiyo maleeshiyaadka wada al-shabaab ka tirsan kadibna waxa uu dhagar qabaan geeyay saddexda maleeshiyaadka ee hubaysan meelaan ka fogeyn xafiiska wasaaradda maaliyadda xasan waa xubin muhiim u ahaa kooxda al-shabaab waxaan maanta kula kulmay xarunta hoggaanka baarista ee hay'adda nabad sugidda qaranka waxaana xasan uu daha ka qaaday lugtii uu ku lahaa weerarkii madaxtooye habeen hore weerarkii kan ka horreeya isna sidan oo kale madaxtooye lagu qaaday weerara qaraxyo loo adeegsado oo ka dhacay hoteelka Maka al-Mukarrama iyo waliba hoteelka kale Oriental iyo sidoo kale weerarkii baarlamaanka dhammaan weeraradaasi waxa uu xasan ka ahaa midkii saaminayay xasan oo aan marnaba laga shakin waxa uu qirtay in ku dhawaad 2 sano uu dhagrayo ummadda Soomaaliya isla markaana uu wax badan ka qorsheeyay weerar dhiig badan ku daatay waxaana uu muuqday inuu ahaa farsamo yaqaan u carbisnaa saaminta meelaha ay shabaab wax ka fuliyaan waxa uu dheerado xasan uu qirtay inuu sidoo kale markay wax dhacaan kadib uga warbixin jiray al-shabaab qasaaraha ka dhashay qaraxyada ay geystaan xasan oo ahaa nin dhalinyaro waxa uu si joogta warbixin u siin jiray al-shabaab ku aadan xaaladda madaxtooyada waxaana ka mid ah waxyaabaha uu sheegay inuu gudbin jiray waqtiyada salaadaha lagu tukado masaajidka madaxtooyada meelaha ay dhigtaan baabuurta wasiirada dhaqdhaqaaqa wasiirka gaashaandhigga iyo arrimo kale oo muhiim ah waa kan xasan oo ka sheekeynaya lugtii ku lahaa dhagarro badan oo al-shabaab uu la maleegay aniga waxa waa rag la socdo maysan jirin laakiin ragga waxa waa rag aniga la igu soo diro oo si handada la igu soo saaray ahayd raggana meesha geeya una lagu dhahay meesha markaa geenayga meesha nimankan ayaga dantooda qabsanay isaga soo tag hadii geeyna waa soo tagi waa meel sidoo dagaalku bilowday waa gartay marka imisan nin baad wada markaadi nimanka 3 ahaayeen 3 haya marka 3 hore muu taqaan may haya oo la soo saaray markaas xagee laga soo saaray meel wada ay joogaan ka soo qaaday lagu dhahay meesha wadada ka soo qaaday meeshii oo waxay to halkaan geeyay lagu dhahay wadada iyo halka aad ka soo qaaday ma noo sheegi kartaa wadada Boondheer waa Boondheer marka ma iyagoo qoryahooda wataad wadada ay taagnaayeen ayagoo qoryahooda tahay sida askar u labisay meesha taagnaayeen tutaayin keenay ana hore una soo qaaday meeshaan in la keeneen imisa saacadeed markaas wadada kula kulmaysa 12 saac ee bar ahayd dhankan u soo deganaysa ee 12 soo deganaysa 12 saac bar marka halka aad ka soo qaaday si rasmi ah noogu tilmaami kartaa wadada degmada Boondheer marka waxay la dhaafaa iskuuska waxa la dhahaa Dr. Cooki kadib markii ay baabuurka soo fuuleen wixii ka dambeeyay ma nooga sheekeyn kartaa meelaha aad soo marteen iyo sidoo wadada caadi oo loo soo maray meesha soo marnay meel kale oo gooni ma soo marin ay halkeed soo kaga soo dhacday wadada madaxtooyada soo gashay wadada caadiga waxay ahayd oo tiyaatarka hortada maraysan soo marnay saas oo soo galnay kadibna meeshii meeshii oo tagnay sideed kaga soo gudubteen bartamaha barta sida baawarta soo gudbaan oo soo galay oo orada iyo si iskawaalmo oo soo gal caadi oo soo galnay intii ku soo sheeganay la socod wax ugu soo kordha malahan wax caqabado aad la kulanteen ma jirtaa may haye qoryahooda iyo waxbana ma qarsaneen qoryahooda oo qarsaneen baawarka ku qarsadeen haye okay
marka ma dhar shacab bay wateen ayaguna maya waa ciidan ahaayeen soo kumaan dhihin haye cidna kuma weydiin maxay yihiin nimankan ma ciduma arkinba haddii la arki lahaa waxbay ahaanayd haye kadib madaxtooyada xageed ka tagteen madaxtooyada waxaa ka tagnay meeshaan oo anaga xafiiskeena agteedaa ka tagnay meel oo barxaddaa ka tagnay meeshaasaa inaa ku deji ahayd waa markii intaan la degana wixii ay meeshii ay ku fashilmeen meeshiiyaana isqabsi dagaalka bilowday gaari wax qarax ma saarneen oo asiga ku xiran laakiin wax adag nimankay wateen oo sida bambooni iyo miinooyin wateen oo ku qarxa gaarigi inay ka dejistaan laakiin meesan ka dejisan wixii way saarnaayeen iyadoo saaranaya saxabada ku bilaabatay wixii saarnaa inay ku qarxeen taas aaminsan laakiin gaari qarax ma ku xirneen oo gaari aniga oo caadi wato ahaa xasan waxa uu ka soo jeedaa qoysintooda badan ka mid noqday kooxda al-shabaab laba ka mid a walaalihiis waxay dhinteen iyagoo u dagaalamaya al-shabaab walaashiis ka yar najmo waxay ka mid tahay al-shabaab waxaana u dhaxaa cabdirasaaq oo ah horjooga ka tirsan sirdoonka al-shabaab islamarkaana ahaa shakhsiga uu ku xirnaa xasan waxa uu watay gaari nooha ah waxaana gaarigaasi u gaday kooxda al-shabaab waxay sidoo kale bil walba siin jireen lacag dhan $200 taasoo ahayd waxa uu ku bedelan jiray dhagarta uu u maleegayo ummadda Soomaaliyeed waxaana xasan hadda la xiran aabihi oo isna su'aalo laga weydiinayo waxa uu ka ogaa ilmihiisu waxay qaban jireen xasan oo aan waqti ku wada qaadanay maanta hoggaanka baarista nabad sugidda waxaan weydiiyey bal inuu isku arkay inuu dembi weyn galay maadaama uu soo maleegay weerar lagu soo qaaday aqalka dalka looga arrimiyay madaxtooye wuxuuna ku jawaabay qayb qaadashada maahan ani nin qori wata meeynimo wax qarxina ma ahayn laakiin waa kuu sheegaa waan fahmaa wax hadal waxaan ahayn aniga meesha maan kaysan orientalna iyagaa kuu diray soo maxay ka danaynayaan markaas kuu dirayeen oo kuu sheegay wallaahi adiga sheegitaanka dadkaas waxay kuu sheeganaa ma lahan waxaad wax ayaga u khaas waaye maxay adiga ku dhaheen markay shaqada kuu direen may meeshaas iyo tinoo soo fiiri bis maanta ma tegi kartaa mana soo fiiri kartaa bis haye meesha haddaad tagtaan waxaad ka soo aragta markaas ama ka jiro oo una gudbinay waa gartay taas ahayd marka meeshii waa tagtay ma tegin waa maray bis kadibna ciidanka banaanka jooga wixii baad uga warbixisay meesha in si loo joogo una u sheegaha waa gartay markaas inay taliyaasha ku jiraan waad u sheegtay soo ya inay taliyaasha ku jiraan oo sheegtay ma sheegi karo walaa wax ku jira laakiin banaanka una aniga ka hadlayo wax gudaha ku jira waxa ogaa kara maahan meelo kale oo iyagana aad sahmisay ma jiraan oo bara kale sida hoteelo ama xarumo kale oo aad ag martay xitaa ugu yaraan noo soo fiiri ku dhaheen waa gartay shaqadaada marka adiga waxay ahayd inaad sahan qabato soo ina teleefon ugula shaqeey bisa ahayd ujeedkeena okay teleefonada marka telefoonka unbaad warbixinta kusii jirtay ayaga soo wici jira xitaa teleefonkooda waa xitaa maan aqaano ayaga markay dankaa leeyihin kusoo wacayaan waxay kusoo weydiistaan ijaabteen ayagaa kusoo wacayaan saas una ahayd maxaad ku bedelan jirta xogtaa inaad siiso والله waxaa ku bedelay jirnikaas oo sidaas oo igu soo galay sidii aan dhankeedii soo maray oo maahe waxa deertaan lacag aniga ay ugu baahnaa ma jirto in shaqeysta ah iyaga meeqay ku soo jireen wax isii ma jirin waxay isii jireen wax macnaa ma waxba isii jireen ma jirta inay ku soo jireen bishii lacag $200 may saas ka oo aad ma okay laakiin gaariga aad watay iyaga ku gaday gaariga aniga gatay ayaga wax una iga siiyeen meeqay ku siiyeen markaad gaariga gadanaysa waxay iga siiyeen maxaan lahay adi kala bar gaariga anaa gata kala barna iga siiyey imisay ku siiyeen markaas imise kala bar isiin gaari afar ka baxshay kala bar isiin ugu dambayn xasan waxa uu fariin u diray maleeshiyada kooxda al-shabaab iyo cid kastoo ay suuragal tahay inay kooxda al-shabaab dhagar ku gacan siiso waxaana uu yidhi xasan dembi waa arkaa qofka saan arkayso inay dembi tahay culayska ay leedahayna waa dareemi kartaa in aqalkii madaxtooyada aad fududayso in la weeraro adigu weliba lagu aaminay dembi inay tahay waa dareensanahay ee khalad weyn waayo kuwa kaa dambeeya al-shabaab ama ka mida ama sidan oo kale ula shaqeeya ee laga yaabo inay ku fikerayaan falo noocan inay samey maxaad dhihi lahayd iyagana ay kulay waxaa dhihi lahaa waxaa waaye ayaga waa laba qol isku soo horjeeda ma ogtahay ninkasta mabda ayaga ku dagaalamayaan
mabda ku socdan hadda waxa uu sheegay qaadan maayo marka kuliyada waxa waa mabdiis ninka sabkiisa haysta la waa ninka tanaazulayna asii waxa yeelkiisa waa al-shabaab imise qofaad adiga kala hadli jirtay xiriirka la hadda halna ku sheega ku dhaxay ninka labaad isna oo xasan dhagar uu soo maleegaya ku dhawaad 2 sano oo ku dhaxmilnaa madaxtooyada iyo aagaga ka agdhow waxa hadda u muuqataa in dhagartaasu ay noqotay mid soo ilaatay noloshiisii waxay ku dhamaatay fashil iyo xaalad khatar oo soo dhex istaagay markii uu ku soo gabagabeeyay weerar uu ku soo hogaamiyay aqalka madaxtooyada waxaana xasan hadda uu ku xiran yahay xarunta hoggaanka baarista nabad sugidda isagoo dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii isaguu soo maleegay cabdicasiis afrika SNTV muqdisho.